بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Abriil sanada 2019 wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ujeedo magacaabid wasiiro markuu arkay qodobka 97 faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 98 faqradiisa labaad xarafka a iyo ba dastuurka kumeel gaarka Soomaaliya markuu arkay qodobka boqolaad xarafka a ba sa dastuurka kumeel gaarka ee federaalka Soomaaliya markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaaliga Soomaaliyeed markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirada wuxuu magacaabay qodobka koowaad waxa mas'uulka loo magacaabay xilka kor ku qoran wasiirka arrimaha dastuurka waxa loo magacaabay mudane Saalax Axmed Jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxa loo magacaabay mudane Sadiiq Xirsi Warfa wasiirka tamarta iyo biyaha waxa loo magacaabay mudane Fawziya Maxamed Sheekh wasiirada cusub ee la magacaabay waxa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda